بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبادena qaaliga how meel walba aad joogtaan waa mar kale iyo Goblas. muuqaalkan waxaan idinku la wadaagi doonaa shan talo oo aad muhiim ku ah inaad ogaato waa haddii aad adeegsato ama aad isticmaasho computer. si aad u daawato muuqaalkan iyo muuqaal kale xiiso badan, fadlan subscribe garee channelkan, like saar, lana wadaag saaxiibadaada jecel inay faa'iideystaan. si aad hordhaceena kusoo aragteen, waxaan cashirkan uga faa'iideysan doonaa shan tool ama shan talo oo aad muhiim u ah inaad ogaato misana aad ka faa'iideysato. qodobka koowaad aan idinla wadaagayno wuxuu noqon doonaa ama wuxuu yahayba sidee loo hagaajiyaa xogta aadan u baahnayn. marka hore waxaan tagaynaa settingkeena ama settingka computerka, window start menu ku dhufo. settingka ku dhufanaysaa. setting markaad imaato, windows setting markaad imaato waxaad ku dhufanaysaa halkan, dan waxaad ka tagaysaa qaybtan storage-ka ay ku qoran tahay si aan u manage gareyno xogta aanan u baahnayn storage-keena ama logo diskigeena ku jira. markaad storage-ka ku dhufato waxaa kusoo baxaya panelkan. meeshaan wuxuu ku yahay off, laakiin aniga hore ayaan u samaystay, hore ayaan storage-kii u manage garaystay. qaybtan storage sensiga waa wuxuu si automatic ah free space kugu sameynayaa local diskigaaga haddii aad ka dhigato on. hadda wuxuu ku yahay off, laakiin on aad ka dhiganaysaa. markaasi automatic ah ayuu wuxuu kugu sameynayaa free space oo muhiim ku noqon doona ama aad isticmaalayso si temporary ah. markaan intaan aad soo samayso waxaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose ay ku qoran tahay view storage. halkan waxaad ka arki kartaa local diskigaaga sidaad yidhiidaada inta uu maraayo ayaad ka ogaan kartaa. dan waad ka soo laabanaysaa haddii uu storage-ka kugu filan yahay. haddii uusan kugu filnayn clean ayaad leedahay. sida clean loo dhaho waxaad tagaysaa wayaan storage-kaagana wuxuu ku noqonayaa mid free space ah ama ka nadiif ku ah oo ku banaan. markaan intaan aad soo samayso waxaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose ay ku qoran tahay view storage. halkan waxaad ka arki kartaa local diskigaaga sidaad yidhiidaada inta uu maraayo ayaad ka ogaan kartaa. dan waad ka soo laabanaysaa haddii uu storage-ka kugu filan yahay. haddii uusan kugu filnayn okay, saa clean u dhahdid waxaad imaanaysaa halkan. haddii uu free space-kaaga aad u baahan tahay in lagu dhaho meeshaan ayaa clean now ku qoran tahay, ayaad kali ku leedahay. computerkaaga uu ku dhaqmayaa. marka aad storage sensigan on ka dhigatid waqti ayuu kuu xadidayaa. ana hadda wuxuu ii saaran yahay every month, every week, every day. macnaha storage-kaaga wuxuu configuration ku sameynayaa haddii aad saaratid every day, maalin walba kugu sameynayaa, every week isbuuc walba kugu sameynayaa, every month na bil walba ay kugu sameynayaa. marka hadda wixii aad qaybta u baahan tahay ayaad ka dooranaysaa. dan clean ayaad leedahay. haddii uu bis badan ay haystidna oo macno badan sameynaynin waa sidaas kaga deynaysaa.
dabcan qodobka inaad fahantay ayaan rajeynaya oo aad ka faa'iidaysan doonto insha allah. panelka ayaa inoo soo furmaya. systemka marka aad tagto meeshaan aad u jeedid ee ku qoran tahay night light effect. aniga already uu ii samaysan yahay uu apply garaysan yahay oo horaan u sida garaystay, laakiin aad markaan wuxuu ku yahay off. night light ka iftiinka habeenkii wuxuu ku yahay off. haddii aa on dhahdid iftiinkaaga wuu ku shaqeynayaa. same that waxaa samayn kartaa waxaa jiro window HD color oo loogu talagalay in la isticmaalo xilliyada habeenkii iyo xil walba ay ku aadan tahay. okay, hadba intaad u baahan tahay ayaa ka dhiganaysaa halkan ay ku qoran tahay janji and brightness for the build in the display ayaad iftiinka ka yareynaysaa. hadda iftiinka aad ujeedaan waa 0 waa mugdi. haddii aasaan dhahdidna waad dareemaysaa inuu iftiinka zaa'id dhalada ka yahay. cafan raalli noqda si aan idinku caddeeyo ama idinku sharxitaan idinku fahansiiyo awgeed aan sameeyey. halkan ayaad imaanaysaa. qaybtan waxay kaa caawinaysaa in aad ka dhigato aad qaybo badan oo aad ka dhigato oo aad ka bedeli karto. night lightkan setting ayaad imaanaysaa ku dhufanaysaa. waxyar hoos ayaa dhigaysaa. okay, markaan meeshan aad taagan tahay shadwalkan oo jadwalka ah haddii oo sasnetka ku saaran yahay waa wax fixed ah, laakiin saddex hourskan waqtiyada ayuu ku xadidaya. tusaalahaan oo kale aniga wuxuu ii saaran yahay 12 habeenimo oo xilliyada maqribka ayuu ii saaran yahay. wuxuu iftiin ii noqonayaa 7 subaxnimo ayuu geeska Afrika ayuu wuxuu ii noqonayaa iftiin. marka adiga ayaa xilliga ama waqtiga aad rabtid ka dhigan kartid. hadda tusaalahaan oo kale aan ku dhufanayaa waxaa ka dhigaa 1 saac habeenimo. 1 saac habeenimo ayaan ku dhufanayaa. kadib meeshaan oo tigta ay ku qoran tahay mujidan ayaan ku dhufanayaa means accept camal ay ka dhigan tahay. then waxaa soo samaysay inaad waxaa soo manage garaysay haddii aad stepkan raacdid iftiinka habeenkii ayaad ku manage garaysatay computerkaaga sida effect kugu yeelanin oo effectiveness kugu yeelanin iftiinka computerka ee zaidka ee indhaha ka xanuunjin kara ama xanuuno kale oo indhaha sababi karo inay kugu dhacaan. insha Allah ilaaha nooma ka soo, laakiin waxaa fiican hadda electronica isticmaalayno inaan aqoonteeda leenahay. waxaan rajeynayaa in qodobkan asina aad ka faa'iidaysateen. qodobka saddexaad ee aan muuqaalkan uga faa'iidaysan doono wuxuu noqon doonaa shortcut for PC computerka. shortcutyada muhiimka ah inaad taqaanid haddii aad isticmaalaysid computer. waxaa jiro waxyaalo basic ah oo shortcut ah. shortcutku way fiican tahay qayb walba uu noqdo ama software walba uu noqdo shortcutkiisa inay xifdisan tahay. waxay kaa caawinaysaa shaqada aad qabanaysid waqtigaas ee ku fududeynaysaa in xilli hore aad ku dhamayso. sababtoo ah inta muuska ka dawo wareegi lahayd in aad wadooyin yar aad marto kooban aad marto waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof professional ah oo shaqadiisa xilli hore guta. shortcutyadaas qaybo badan ayaa ka soo qaadan doonaa. tusaalahaan oo kale waxaa taawanaysaa window UE haddaad dhahdid waxaa kusoo kacaya meesha aad ka tegi lahayd. afan si aad ogaano meesha inaad dhahdid oo aad dhihi lahayd meesha computerka aad tegi lahayd waxaa leedahay kaliya my computer aad ka tegi lahayd window ES ku qabanaysaa. si toos wuxuu ku geenayaa your PC-gaaga ama computerkaaga. labo shortcut labaad ee muhiimka ama basic inaad ogaatidna waxay tahay tusaalahaan oo kale waxaa ku furan tusaalahaan oo kale waxaa ku kacsan intaasoo software ku kacsan oo waxaa rabtaa
inaad taabiskana kusoo kacsan aad iska soo hamar minimize garayso oo cala duul aad degtid desktopkaaga. meesha aad ka dhihi lahayd minimize aad taaban lahayd waxaa ku fudud inaad hamar qabato shortcut ama shortcut window iyo D si automatic ah fudud wuxuu kuu geenayaa desktopkaaga. sidoo kale inta waxaa rabtaa inaad iska soo log garaysid computerkii waxaa leedahay window L oo macnaha ay kamid tahay ka dhigan tahay in computerkaaga aad log dhahdid ama aad xiratid. dabcan saad u jeedid computerka si toos ayuu kugu xiran yahay. markaad usoo laabatid waad soo kacsanaysaa oo kaliya ama password ha ku lahaado ama uu ku lahaan laakiin muhiimada computerka inaad log dhahdid way fiican tahay. leedahay shortcut oo sahlan oo aad isticmaali karto. waxaad leedahay window plus shift plus s markaad dhahdid wuxuu ku sameynayaa snap halkan inta aad rabtid ayaad soo daraagaraynaysaa meela jeedaan. okay then inta leedahay waxaa jirto cilado qaar oo computerka ama ku dhaca ama window ku dhaca kaasi oo keena in qofka computerka isticmaalaya aysan aqoon dari u geysato. tusaale ahaan oo kale computerka oo shaqo hayo ama ficil amar u diray ayaa waxaa laga yaabaa amar kale inuu diro computerka inuu wuxuu noqonayaa markaas inuu jam noqdo oo go'aan qaadan waayo uu dhaxbartan istaago. sida computerada loo hagaajiyo haddii cilado kooban ay qabsadaan waxaa tagaynaa sida ay start menu-gana tagaynaa dan waxaa kasii tagaynaa setting home ayaa tagaynaa waxaa tagaynaa update and security waxaa kasii tagaynaa recovery get the start. waxaa kusoo baxaya labadan optionka koowaad haddii aad ku dhufatid wixii files ah ama application ah ama waxyaala ay kugu jiraan waa lagu xafidaa oo data computerka kugu jiraysaa resetkan waa lagu sameynaa. laakiin haddii aad kan dooratid shay walba oo computerka kugu jira waa remove gareynaa ayadoo lagu sameynaa resetting. marka waxaa ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay keep my files click ayaa ku leedahay. shaqada ayuu si toos u galayaa waqti badan kaama qaadanayo kaliya waa sugaysaa. okay haddii aad u baahan tahay waa ku sii deynaysaa haddii aad u baahan inaad cancel ayaad leedahay. dabcan waxaan rajeynayaa qodobkaas inaad sidin ka faa'iidaysateen oo aad iyo aad oo idin anfacay. qodobka shanaad ayaan kusoo gabagabeynayno cashirkeena maanta ama muuqaalkeena maanta idinla wadaagayno wuxuu noqonayaa hagaaji notificationada ama fariimaha kaaga soo gaaraya computerkaaga. waxaa laga yaabaa inaad notification marka la dhaho waxyaalo badan kugu soo dhacayo. waxaa laga yaabaa in computerkaaga uu soo deynayo notification kale ama xaysiimo badan oo computerka browserka ah ama applicationada kugu jira. si aad iskaga xirto ama aad u manage garaysid qodobkan si fiican u sii daabo waxaad tagaynaa start menu setting ayaa kasii tagaynaa setting ayaa kasii tagaynaa setting ayaan kasii tagaynaa waxaa tagaynaa qaybtan ay ku qoran tahay systemka marka aad ka tago waxaa kasii tagaynaa qaybta ay ku qoran tahay notification and actions. haddii qaybtan panelkan ayaa kusoo furmaya haddii qaybtan aad taagan tahay oo meeshaan ay ku tahay meesha on ay ka tahay off ay ku tahay
wax notification ah oo ku soo dhacaya malahan laakiin waxaad laga yaabaa inaad ku isticmaalaysid Facebook, Instagram, WhatsApp iyo waxyaalaha social media ama Gmail ay kugu xiran yahay ama email kugu xiran yahay waxa noqdo in fariimaad u baahan tahay on ayaad leedahay. waxaa laga yaabaa markaad on dhahdid inay kusoo gaaraan fariimo kale oo aadan u baahnayn. sidee markaas kaaga xakameyn karaa? fariimaha waxay kaaga imaan karaan browserada applicationada aad isticmaalaysid sida tusaale kale Google Chrome. waxaa laga yaabaa inuu kaaga yimaado waxyaalo notification aadan u baahnayn. haddii aad off iska dhahdid wax notification ma arkaysid, laakiin haddaad u baahan tahay on ayaad iska leedahay. laakiin waxaa jiro trick muhiim ah oo Google Chrome-ka naftirkiisa gudihiisa loogu xiri karo waxyaalaha xayeysiimaha Google-ha dhexdiisa lagu xayeysiinayo ama browserkaas lagu xayeysiinayo in qaab la iskaga xiro ayaa jirto. insha Allah tacaala mar ayaan kasoo diyaarin doonaa muuqaal kooban oo aad iyo aad muhiim u ah asina aad ka faa'iideysan doontaan. hadda wixii aad u baahan tahay qaybtana waxa on ayaa leedahay ama off leedahay haddii aad u baahan tahay. dabcan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen muuqaalkan. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe ino saar, like garee muuqaalkan la wanaag saaxiibadaada jecel inay ka faa'iideystaan. waa anigoo Yaxya Cabaas Ibrahima iyo bahda Gobolas oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgeliyo. subxaanaka Allahu bihamdi ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.